oo dawladda deegaanka Soomaalidu aynan shaacin karin qodobka koowaad wuxuu ahaa waxa la wixii dhib haya meesha ka dhacay mas'uuliyadeeda in dawladda deegaanka Soomaalidu qaado wax alla wixii shacab soo gaadhay ciidan go'ay labada dhanba mas'uuliyadeeda in dawladda deegaanka Soomaalidu qaado dhulkana in la aqoonsado inuu yahay dhul canfareed shacabkii ku noolaa ee ciisana ay soo noqdaan iyagoo canfar ah bartoodina soo degaan tolo maxaa loo dagaalamayay hadday halkan ku dambeyn doonto okay maxaa la isugu dirayay afarta gumaysata kullayba waa inoo gumaysiye iyo dadkii Soomaaliyeed meesha joogay hagaag qodobka kale ee canfar ay soo jeedsay iyadana wuxuu ahaa in bayaankii ay ka noqoto dawladda deegaanka Soomaalida kabinetkeedu uu gaadhay horaantii dagaalka ee ahaa inuu dhulku dhul Soomaaliyeed yahay oo bayaan ay soo saartay ay ku buriso in ay soo saarto isla bayaanka oo ay ku aqoonsanayso inuu dhulku dhul Soomaaliyeed yahay dhul canfareed yahay sorry isla bayaankaas inay soo saarto mid official oo raali gelin kaga bixinayso inay bayaankaas hore soo saareen oo ay ku aqoonsadeen dhulku inuu dhul Soomaaliyeed yahay inay buriyaan afari hadashay Soomaali maxay samaysay way aqbaleen Cabdiqaadir Rashiid Riyaal Xamuud Axmed Yaasiin iyo raggii la socday way aqbaleen sidaas ay ku aqbaleen salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh daawadayaal soo dhawaada magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Axmed waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo xog ay muhiim tahay in dadku ogaado oo ka qarsoon xogtaasi waa nuxur ka soo baxay shir waadhaweyd ka dhacay magaalada Addis Ababa kaas oo dhaxmarayay ama u dhaxeeyay xukuumadda Abiy Ahmed iyo qowmiyadda iyo canfarta iyo Soomaalida dadka kala socday haddii aan idinku celiyo colaadda canfarta iyo Soomaalidu waxay ka soo bilaabatay deegaano galbeedka gobolka Sinti dhaca oo ay ka mid yihiin saddexda degmo ugu magac dheer yihiin oo xukuumaddii hore TPLF ama Cabdi Maxamuud Cumar warkii uu deegaanka ka arriminayay lagu wareejiyay gobolka canfarta kaligeed ma ahayn diri dhawaa inta badan waxa lagu wareejiyay Oromo Baabiliba waxa lagu wareejiyay Oromo dhul kale oo fara badanna qowmiyada kale ayaa lagu wareejiyay si kastaba ha ahaatee shacabku waxay ku deganaayeen oo deegaanadooda ku deganaayeen si badqab ah walow uu jiray gumaysi dhulkoo dhan ka jiray oo jigjiga oo la sinaayeen oo qabridahar oo la sinaayeen oo ay fiiq oo la sinaayeen oo deegaanka iyo dalka dhan ay Itoobiya gumaysato ay la sinaayeen xukuumaddan Mustafa markii ay timid in yar ay joogtay kadib cadaadiska oo sii batay waxay go'aansatay ama kabineetka deegaanku intuu fadhiistay waxay yiraahdeen dhulkaasi wuxuu ahaa dhul Soomaaliyeed waanuna qabanaynaa ma garanayo wax ku qasbayay oo aan ka ahayn talo xumo inay go'aan noocaas soo saaraan oo ay shaaciyaan oo Itoobiyadii xukuntayna ayna ka hoos bixin ma garanayo cid dabada ka riixaysay si kastaba ha ahaatee go'aan shacabku soo dhaweeyay buu noqday wayna ku dhaqaaqeen ma aysan ka dhabaynin go'aanka kadib dawladda deegaanka Soomaalidu waxay qaaday dagaalo fara badan oo dadka dhaliilaya ay ku sheegayeen inay bilaa jahay yihiin bilaa hogaamin yihiin bilaa maxaan ku dhahay khibrad yihiin gala baxa waxa ku dhimatay kumanaan askar ah oo haddii aynan noolaan lahaayeen maba dhicin maanta wax badan deegaanka u qaban lahaa waxa la soo barakiciyay oo la xasuuqay dadkii shacabka ahaa hal taaka ahna in deegaanka canfartu dhulku soo darsada mooyaane hal taaka ahna lama qabanin oo dhulkii loo dagaalamaya waxa isqabsatay baroorta iyo tacsida guri kasta oo Soomaaliyeed gobol kasta waxa kaga baxay qof ay aad u jeclaayeen laakiin dhul buu ahaayo dadku way u qabeen si kastaba ha ahaatee aan soo daadagay canfarta iyo Soomaalida dhaxdoodii waxa gashay dawladda federaalka ahayd waxayna ku qasabtay mid walba inuu meesha uu joogo uu istaago
waxaa kaloo ay ku qasabtay in nin walba heshiis loo laqimay oo aqbalo oo la isugu yeedhay Mustafa iyo Awal Arba magaalada Addis Ababa. intaasi markay dhacday kadib waxaa soo baxay heshiis dadku aynan guntiisa hoose ogeyn laakiin baarkiisa kore laga dhigayay in qolaba wax laga qaaday qolana wax loo ogolaaday. warka runtiisuba waa dambeeyaaye Abiy Ahmed wuxuu yiri ay isugu yimaadaan laba guddi oo ka kooban deegaanka Cafarta iyo Soomaalida kadib afur wadareedyo la isu sawiray oo wax nuxura aan laga wada hadlin. afur wadareedyadii kadib labadii guddi waxa loo bixiyay guddiga nabadda iyo horumarka deegaanka Cafarta iyo Soomaalida. xisbiyada min laba ruux baa looga yeedhay kuwa deegaanka Soomaalidu way tageen markii laga reebo ONLF oo diiday. waxa ONLF loo aqoonsaday oo ONLF ahaan meesha u joogay Riyaal Xamuud oo ka soo jeeda deegaankaas dadkiisu laakiin aysan jeclayn iyo Axmed Yaasiin oo ah wasiirka masiibooyinka iyo khataraha ONLFna ahaan jiray haatana Mustafa gacantiisa midiga. labadan nin oo shaati ONLF la yiraahdo loo galiyay baa joogay oo ONLF matalayay. xisbiga FEB waa u joogay, xisbiga Hebla waa u joogay, xisbiga BB waa u joogay deegaanka Cafarta iyo Soomaalida. Soomaalida madaxda ka socotay waxa hogaaminayay wiilka hoggaanka nabadgelyada ah ee la yiraahdo Cabdiqaadir Rashiid. nuxurkii Cafartu ay la timid wuxuu noqday qodobadan hadda aan idin sheegayo oo dawladda deegaanka Soomaalidu aynan shaacin karin. qodobka koowaad wuxuu ahaa waxa la wixii dhib haya meesha ka dhacay mas'uuliyadeeda in dawladda deegaanka Soomaalidu qaado. wax alla wixii shacab soo gaadhay ciidan go'ay labada dhanba mas'uuliyadeeda in dawladda deegaanka Soomaalidu qaado. dhulkana in la aqoonsado inuu yahay dhul canfareed shacabkii ku noolaa ee ciisana ay soo noqdaan iyagoo canfar ah bartoodina soo degaan. talo maxaa loo dagaalamayay hadday halkan ku dambeyn doonto. okay maxaa la isugu dirayay Cafarta gumaysata kollayba waa inoo gumaysiye iyo dadkii Soomaaliyeed meesha joogay. hagaag qodobka kale ee Cafar ay soo jeedsay iyadana wuxuu ahaa in bayaankii ay ka noqoto dawladda deegaanka Soomaalida kabineedkeedu uu gaadhay horaantii dagaalka ee ahaa inuu dhulku dhul Soomaaliyeed yahay oo bayaan ay soo saartay ay ku buriso in ay soo saarto isla bayaanka oo ay ku aqoonsanayso inuu dhulku dhul Soomaaliyeed yahay dhul Cafareed yahay isla bayaankaas inay soo saarto mid official oo raali gelin kaga bixinayso inay bayaankaas hore soo saareen oo ay ku aqoonsadeen dhulku inuu dhul Soomaaliyeed yahay inay buriyaan. Cafari hadashay Soomaali maxay samaysay way aqbaleen. Cabdiqaadir Rashiid Riyaal Xamuud Axmed Yaasiin iyo raggii la socday way aqbaleen sidaas ay ku aqbaleen way soo qaateen hal labaan la kala ogeyn in war saxaafadeedka iyo bayaankan ay soo saarayaan la qarsoodin oo Canfar iyo federaalka loo kala diray oo kulliba ay soo bandhigi doonaan iyo inay iyaguba shaacinayaan labadaas aan la kala ogeyn laakiin waxa la ogolaaday oo dawladda deegaanka Soomaalida wafdigii ka socday oo aqbalay shuruud la'aan in sidaa loo yeedhiyay ay tahay. haddaba yaa yeedhinaya Cafar iskama yeedhinayso Abiy ayaa yeedhinaya Abiy ayaa yeedhinaya dagaalkan inuu dhacana Abiy loogu hiilinayay dawladda deegaanka Soomaalidu dagaalkan inuu dhaca markii hore Abiy loogu hiilinayay inuu istaagana Abiy loogu hiilinayay dhulku dhul Cafareed inuu noqdana Abiy loogu hiilinayaa xaalad kasta oo arintaas ku saabsan Abiy loogu hiilinayaa. qolada deegaanka Soomaaliduna Abiy raali gelintiisa ay talaabo kasta u qaadaysay dhiigeena loo daadinaya Abiy raali gelintiisa dhulkeena haddana loo bixinaya Abiy raali gelintiisa wiilka Oromo. hagaag xogtu waa intaas aniga fikirkayga iyo wixii la quman yaan ku darayaa xogtu laakiin waa intaas. hagaag deegaanka Soomaalida dhulka aynu leenahay
gumaysi baa haysta hore waxaan u sheegay gumaysigu dhul dhammaystiran buu naga qaaday dhulkii oo dhammaystiran buu ama soo wada celin ama markaanu tabar u helaanu ka qaadan ee rabbi qadaro ama uu wada haysan laakiin dhulkii lama sarifi karo oo diri dhabana maalin lama goynayo baabilina maalin lama goynayo cadaytii cunufana cidima qaadan karto been weeye waxaan soconaynin weeye waxaan suurtagal ahayn weeye waxaanan yeelaynin weeye deegaanku markuu sidaa yahay dowladdiisa dabadhilifka ah haddii farsamo xumo ay dagaal ku gashay siyaasad xumo ay dagaal ku gashay shacabnimo ay dagaal ku gashay ku bixin mayso dhul saxiixiisii hore shalaytadeeda iyo qowmadeeda kuwii saxiixa ay maanta joogaan haddii la saxiixo iyo haddaan la saxiixin haddii ciidamo la dejiyo iyo haddaan la dejinin kolleyba maalintay jigjiga xorowdo cadaytun uu xoroobi laakiin intaan la gaarin dadka shacabka ee ku nool mayna ogolaanin ugaaska beesha ciise ugaas mustafa hawshan waa loo soo gudbiyey waana loo sheegay gaashaankuna u daruuray wuu diiday arrintaas suuragal maaha mana ogolaanayna mana yeelayna buuri raganimo beesha ciisena waxay tiri waan isku filannahay dowladda deegaanka Soomaalidu tii hore na bixisay waxba kama duwana waan isku filannahay iyada uun yeena dhabarka naga tooganin iyada uun yeena dhabarka naga tooganin haday wax nagu caawina haddaan rasaas uga baahanaa nagu caawiso halkaas shacabkii ciisana istaageen dadkii waliba meesha deganaa intoodii badnayd halkaas istaageen kolkii laga tago shakhsi dabadhilifa oo iyaga gumaysigu uu soo adeegsado Riyaal Xamuud Ibrahim Cismaan iyo kuwa la midka ah hagaag odayaasha dhaqanka laamaha ammaanka oo ciidanka liyu boolisku u horeeyo maleeshiyaanka iyo raggii meesha ku dhintay ee walaaladood iyo saaxiibadood kaga yimid difaaca waa inay arrintan si dhab ah uga hadlaan si dhab ah anagu ogeysiinay ay uga hortagaan ay uga yimaadaan ururada bulshada oo ururada siyaasadda oo awal ugu horeyso iyo ruux kasta oo aqoon-yahan oo damiir leh xogtaasi sidaan u sheegay bay u jirtaay waa in uu يعني سيدي وكسولين كرا ممكن كان وكجور تيكرا وسمية تاسنا وباقي جانو تشيدينيو تتكا خصيصه عواقبتك كذا لقرت بقول كان سيادو بحو تيجي جوجينين دحبور بان جوجينين أو قبر دار بان جوجينين أو مجال كلا هاري بان جرين قميص جوه هست لكن قوميات كلا لجوجو شعب بدين قوميات كله يا لجوجو شعب بدين أو بري هدي إثيوبيا بقى بربورتا إيه قصدي هذا وقف الفرن دونتايات كان دونت إثيوبيا بربورتاي ويكلتي إن شاء الله هكذا تكتة كلا تجداس sidaad uga furfuri lahayd qoomiyadii kula degtay ee dhulkaagii qabsatay yaa noqon doonta iyaduna hawl kale wasabtaan u leeyahay dhulkeen isagoo isku dhameystiran oo in hebla goosanin hal loogu yimaado bartiisa hala noogu hayo halkaas aad taagnaanayna waxa kale oo xusid mudan dadka riyoonaya waan barwaaqownay waan baraadnay yani ninkii udambeeyay shalay laha shaawar baa lagu qabaystaa waa reetuli guleed wuxuu ka soo jeedaa degmada dhacday waqooyiga degmada magaalada Jigjiga ee tuli guleed sandwich baa laga dhigay degmadiisi jinacsani iyo dhul dhanbay goosatay Oromo xagana makaaniis iyo dhul dhan xagga wajaalana waa laga goostay xagana waa laga goostay iyada iyo Jigjiga dhaxdoodana waa la degay Oromo degtay dhan walba laga degay iyada oo ku jirta maanta haddii Oromo iyo Soomaalida xabad yar dhex timaado tuli guuleed koobiya looma geyn karo Jigjigana uma geyn karto cid kalena uma geyn karto magaaladiisii iyo degmadii uu ka soo jeeday baa sidaas ah oo la cunaya la rifay la baabi'iyay markaasuu nooga sheekeynaya shaawar Jigjiga lagu qabaysto warjigida shaawar ku qabaysanaysa maxay tahay wasaaradda biyaha ee Jigjiga dameer loo dhaamiyaa wasiirka wasaaradda biyaha ee Jigjiga ama deegaanka Soomaalida soo xasan daadhi ma ahayn dameer buu dhaansadaa gurigiisu dhaansadaa xaqadaas la sheegay si kastaba ha ahaatee beenta iyo hafaryada iyo walaahowga
iyo هذا حلقة داي إثيوبيا رارن دحول دب ku taagantahay دحول dab ay ku taagantahay gabalkeedii waa kor ka soo dhacay kuwa daba dhoonka u siihina neefku markuu dhinto gofanaha qaniisan waxba kama dambeeyo aad iyo aad baan idin salaamaya intaas aan ku soo koobaya xogtaas wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh